مشروع بيو أورورينتا سنة لبدا كون يتضبدا أو لغا فوليي دقمدا مستحيل أيا وحا أي أهايين كوا إسوغو جيري بيو جلين إيا بيو أورورين waxaana laga fuliyay mashruucyadani qaar kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada mustaxiil ee gobolka Shabeelle waxaana si wada jir ah mashruucyadan lagu horumarinayo barnaamijkan biyo ururinta ah xariga si wada jir ah ooga jaray gudoomiyaha degmada mustaxiil mudane Cabdiraxmaan Maxamed Daahir oo uu ku wehliyay kusiisimaha gudoomiyaha gobolka Shabeelle mudane Farxaan Maxamed Ali waxaana halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada mustaxiil mudane Cabdiraxmaan Maxamed Daahir kulli maanta waxaan ku jirnaa xalfadii xariga laga jiray barkada qabalaha budul runaantii qabalaha budul waa qabalayada aad ugu baahnaa weeyaan in loo sameeyo baraag ay biyaha ka cabaan hadda ka horna waxay lahayn laba barkado kale laakiin waa santarada waxa ku jira ugu balaaran degmada hormuudna ka ah dhanka tafaasiska sida awligeed waxa weeyaan waxaan u mahad celinayaa markii koobaad iskaashadii sida fiican qurux badan soo dhistay inuu ku soo dadaashay sidoo kale guddiga mashaariicda mar walba ku daba joog iyo ku daba socday ku daba jiray tawartaad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale waxa isaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay kusiisimaha gudoomiyaha gobolka Shabeelle mudane Farxaan Maxamed Ali isaga oo ku baraarujiyay shacabka ku dhaqan degmada mustaxiil ee gobolka Shabeelle siday u ilaashan lahaayeen hantidan oogana faa'iideysan lahaayeen maadaama ay maskax iyo maalba ay ku baxday inaad la wareegtaan ilaashataan aad u sameeysan guddi tusaalahan lagala xisaabtamo oo mar walba maartay biyihii haddii tusaalahan barkadan cid la meel kaga soo arto afarta gooyood laga galo wuxuu waa hanti weey si dhib yar bay ku burburi laakiin haddii la ilaashado lahaansho macnaheeya la muujiyo oo biyihii tusaalahan barkadan iyo barkadii sanadkii hore hadda barkado badan baan meesha ku arkay oo la qoday saddex barkadood weey sanadii hadda la soo dhaafay guud ahaan marka inaad ilaashataan oo aad sida ula wareegtaan oo lahaanshaan muujisaan oo aad ku xisaabtantaan barkadan in idinku leedin baan idinku la dardaarmayaa waad mahadsantihiin mashruucyadan isugu jiray biyo ururinta iyo biyo gelinta ah ee laga fuliyay sanadan 2007 degmada mustaxiil sidoo kale waxa iyaguna gudidii dabagalka mashaariicahan degmada mustaxiil ay xaqiijiyeen in mashaariicahan loo fuliyay si tayeesan laguna soo gabagabeeyay waqtigii loogu talagalay dhanka kale waxa iyaguna qaar kamid ah shacabka qaybihiisa kala duwan ee ah iyaga kuwa looga faa'iideeyay mashaariicahan ayaa waxa ay dhankooda ka muujiyeen ballanqaadyo ah in ay ilaashanayaan isla markaana mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen xukuumadda iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo mar walba u taagan siday bulshada u gaarsiin lahaayeen adeegyada ay u baahan yihiin xiriga laaga jar baraagtaas noogu qiimo badan baraagaha oo maanta naloo qabtay oo iskaashiga asnoo qabtay alxamdu shukri dawladda ilaahay madaxeeda anaaga kaco dhammaan xisbiga dhan ilaahay kor ka dhigo mashruucyadan oo isugu jiray biyo ururin iyo biyo gelin ee la fuliyay sanadan 2007 degmada mustaxiil ee gobolka Shabeelle ayaa waxa ku baxday in ka badan 3 milyan oo bir mashruucyadan ayaa waxay qayb ka yihiin qorshaha ay xukuumadda u qaadatay dhinaca ka xaqabtirka baahida biyaha iyo dhamaystirka qorshaha 5 sano ee xukuumadda u yaala Axmed Faarax Geed telefishinka caalamiga gobolka Shabeelle degmada mustaxiil